alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa maanta farxadno ah oo aanu halkan isugu nimi ilaahay baa mahadle marka ugu horraysa waxaannu halkan maanta ku soo dhowaynaynaa oo aragtaan brofesor axmed ismaaciil samatar waxaannu xusbigii baannu ka koobannahay sadaadiintii wasiirradii garabkii dhallinyarada dhammaan waxaannu halkan u taaganay inaannu maanta soo dhowayno brofesore soo dhowow dalkaagii hooyo ku soo dhowow xusbigaagii ku soo dhowow hadalka intiisa badan way noo dambaysaa shirar badan baannu geli doonnaa intaasaannu maanta halkan idinku yeedhnay maanta sidaa uu guddoomiyuhu sheegay waxaanu soo dhowaynaynaa brofesorka oo muddo badan bayna naga maqnaa ayaanu ku soo dhowaynaynaa hargeysa brofesor waxaan ku leenahay ku soo dhowow dalkaagii xisbigaagii dadkaagii intaba ku soo wada dhowow wax badan odhan mayno waa madal soo dhowayneed waxaan aad baan ugu faraxsanay inaad soo laabato ood barnaamijyadii xisbiga iyo dawladda iyo shaqadaadiiba aad hore ka bilaabaysa haddii ilaaha yidhaahdo wax fara badan oo aad xisbiga la wado iyo dawladdaba haddii ilaaha yidhaahdo waxaan leenahay soo dhowow soo dhowow soo dhowow baan ku soo dhowayno brofesor axmed ismaaciil samatar brofesor waxaanu ku leenahay ku soo dhowow dalkaagii hooyo ku soo dhowow xisbigii kulmiye ku soo dhowow waddankaagii aad iyo aad baanu brofesor kuu soo dhowaynaynaa waxaan kuu soo dhowaynaynaa sidaad waddankan wax uga qabateen sidaad horumarka u gaarsiin lahayd sidaad wax u bari lahayd aad iyo aadna waan kuu salaamayaa axmed ismaaciil samatar cidna looga sheekayn maayo dee waa human resource waa figuriska aynu eeganayno waa ogtihiin oo miisaanka ka dhacay soomaaliya markii hawsheeda ka soo digarogtay miisaanka uu hadda ku soo kordhiyay somalilan waynu ognahay waa dadka aynu tirsanayno waa dadka miiqaanka ay leeyihiin aynu miisaamayno aan doonayno inaynu ku soo celinno waddanka aan doonayno inaynu talooyin weyddiinno aan doonayno inay ina tusaaleeyaan wixii talooyin inaga leexsanna inay aqoontooda iyo mabda'ooga iyo kartida ay leeyihiin inay ku toosiyaan aynu ka doonayno somalilan maanta way dhismaysaa taageera u baahan tahay aqoonta loo baahan yahayna dadka ay ku jirto weeye brofesor soo dhowow waan ku soo dhowaynaynaa aad iyo aadna waa ugu mahadsantahay sidaad waddankaaga uga helan tahay waxaan leenahay brofesorka soo dhowayn maantana kuma soo dhowaynayno waayo dalkaagii baad timid oo dhulkaagii baad timid oo dadkaagii baad u timid laakiin waxaannu leenahay uun mar labaad adoo soo noqday ayaannu ku leenahay dalkii aad horeba u joogtay ku soo dhowow muddo yar baad naga maqnayd muddada aad naga maqnaydna kollayba waxaan filanaa in hawlo dan u ah dalka iyo dadkaba inaad ku maqnayd iyo xisbigaba dadweynahaagii annagoo ku hadlanna magacii madax dhaqmeedka jamhuuriyadda somalilan waxaan ku leenahay brofesore soo dhowow kal iyo laab baan kugu soo dhowaynaynaa waddanku wuu kuu baahnaa sidii adag walba u garatay markii hore inaad waddankaagii ku soo noqotid oo aad weliba kala qayb qaadatid siyaasaddii somalilan oo xisbi xaakimkii aad ku biirtay ayaannu mar labaad iyo mar saddexaad ba leenahay ku soo dhowow waxaan jecelahay marka ugu horraysa inaan halkan ka salaamo dadka reer somalilan wax walba iyagaa waxaan ilaahay ka dambeeya iyagaa wax walba ka mudan dadka reer somalilan gees ilaa gees jamhuuriyadda dadka ku nool inaan halkan salaan uga diro ayaan horta doonayaa inaan ku bilaabo mar labaad waxaan ogahay dee abaaro foolxuni inay waddanka haystaan oo dhul badan ay aad iyo aad biyuhu ugu yar yihiin marka halkaana dee waxaan ilaahay u baryaynaa inuu roobkuna soo degdego ummaddan somalilandna inay ka warhayso dadka kolbaalkii ugu liidata in laga warhayo waxa weeye wax lagama maarmaana waxaan markaa u dirayaa salaan dheeraada iyo si gooniya aan u salaamayaa dadka reer somaliland ee wakhtigan abaarta xumi ay hayso anigu ma iloobin dadkii soo dhoweeyey dhulka abaaruhu ka dhaceen markaan marayey maan iloobina maayo weligay madaxda xisbiga ee halkan igu soo dhoweysay wasiirada suldaankaygii oo halkan jooga dhallinyaradii xisbiga madaxdoodii dadkii xisbiga gudihiisaan ka wada shaqaynaynay bishii julaay juun markaan halkan joogay oo qaarkood halkan ay joogaan dee xisbiga kulmiye dadka halkan maanta airportka yimid iyagana inaan salaamo yar iyo weyn iyagana sidaas leeg ayaan doonayaa dee doodaha iyo shaqada la qabanaya iyo barnaamijyadu way noo dambayn doonaan sida madaxda xisbigu ay u sheegeen macaantase waxa weeyaan un mahadnaq
reer somaliland ha noolaadaan ilaahay somaliland ha la jiro innagana reer somaliland oo dhan haddaynu nahay hawsha waddan ma dhammaatee taasi way inoo taalla